warkii intiisa fiicay waa la yiri xasan qaranna maaragtay si fiican buu u taabtaabtay aniga cabdulla sheekh maxamed ali yiraahdaa waxaan ahaa wasiirkii waxbarashada bariga madaxweyne cabdiweli uu ahaa wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga xukuumaddii uu prime minister ka ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynena ka ahaa shariif sheekh axmed ma la xasuustaa marka madaxweyne cabdiweli waxaan kasoo wada jeednaa aniga isaga maraykanka isna wuxuu ka yimid magaalo la yihahdo buffalo oo gobolka stateka new york ka tirsan anna waxaan ka socday ohio meel la yidhaahdo berigii waxay ahayd oo diasporaha ay dalka yimaadeen oo amiin caamir uu yiri markay kasoo degeen airportka xamar wuxuu yidhahdaa ar xaggaas maxay ahaan jirtay ar meeshaan maxay ahaan jirtay oo maaragtay magaalada dhismaheedii lagu wareeray dadkii wareeraha ka mid ahayn anigii madaxweyne cabdiweli runtiina berigaas amison gawaarideeda lagu qaadi jiray wasiirada iyo dowladdaba gaari shacab ah oo mashibil ah ama dhagax ah beriga maba jirinbo waxaa jiray gawaarida south africa laga keeno oo loogu talagalay maaragtay in dagaalka lagu galo oo kuwa madmadooba cagaaran ah ayaan raaci jirnay على أي حال ما أنت حنو جونا بوقي عبدي مدحين عبد الولي وقري رنتي وأرسول وينا يا وأنا أقوم هالعلنا يا دلالك وسمين وعنصر بقى ما دام أنا هي أخوياً حاجة وحبر شدة متخصصي إلى مركو هري إن أو جامع عمر cultural center أنا أمهد اليوم إن هي دان رنتي أمد وحي هرمر جارتها أما أي مسير كذا كوضة تشتها markay leeyihiin goobo la isugu yimaado oo xiwaar iyo wada hadal iyo wax isweydaarsi uu ka dhacayo marka aad baa runtii farxad ii gelinaysaa oo jaamaca center inuu yahay meel dhaqanka Soomaalida culture-ka Soomaalida taariikhda Soomaalida lagu hayo oo runtii buugaagtan iyo wax la mid ah baa maaragtay lagu qabto aan gacan siino in culture center-ka aan u saabiya dadka ay sameeyaan Soomaalida buug ma qorto mana akhriso وسيد الليل إن ودمدا غربي عن كلمة وحال هذا تدك قاركيس هدي أضلعك وجلس بوك ودنيس كسارته ولي قال عكتاب أركاي أو محيا لي بوك مفروي بأفكاس وركاس بدي قال يعني بوجو وحلا قري إن غفوا فريستو آخريو وحكى فهمه تلاك ديبته سيد قرآن وشيء جاي hadduu doono radul ficil sameeyo yiraahdo waana jiraan buugta waxa laga sameeyaa buug kale oo yiraahda buug Cabdiweli oo qori uu ficnaa waxaan ku ficnaa waxaan oo sheeg laakiin wuxuu ka tagay kan uu ka tagay kan uu ku dari kan wala sameyn karaa marka waa inaan noqonaa horta ummad wax akhrisaa waxna qortaa ummad hadaysan waxba qorin waxna akhrinin xadaarad ma gaarto Soomaaliya waxa la yiraahdaa oral society oo waa gabayna laakiin gabaygan waa qalbigan ku hayna laakiin ma hatta ma تعبير ما كوسا بينهم قبل كوما سبينهم مركا رنتي وفرحت بيجلسها إن culture أو قريتانا أو دلك كبل لوذي أو لا سمي book shows لو سمي حمر هرجيسة جيجا بيرلو سومالي الدنيا تها book shows لو سميه بوقت سوق عركود أنت المدينة في سومالي بقرن أولي أن لجارين هركي بوقت عالمي لها أن لجارين لكن هذا أي بلويهين رنتي وحنزلي هاي وهرمر لجارين marka uu soo laabto saaxiibkii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wax badan buuga ku qoray magaciigana isagoo aan iga qaadan permission meel badan oo soo qoray waxaan ahayn saddexdii wasiir ku jirtay golaha wasiirada ee raacay madaxweyne Shariif markii la aaday Kampala Accord isagii anigana horta isagii aniga waxa iska baray saaxiibtay حاسكيسة دكتورة هذا سعيد عيسى سوالف بري هم يراهن صاحبتي يراهن لكن dadkii hore waxa soo dhihi marka walaashay dr. Hadan Saciid Ciise oo aan Soomaaliya isku naqinay oo jaamacadda Lafoola ka soo wada baxnay oo aan Mareykanka isku aragnay ayaan waxaan arkay iyadoo wadaadkan u daba socdo marka waxaan leeyahay wadaadkan muxuu ahaa magaciisa sidaas ayaan isku baranay saaxiibkay markaan Kampala tagnay waxyar baan rabaa inaan sheego muhiim ah Kampala markaan tagnay Soomaaliya waxay haystaa Cabdiweli anigana laba koox kala dhahay Soomaaliya badanaa dadku waxay geliyaan gobollo ay geliyaan waxa leeyahay oo ninkaas uu matala ninkaan uu matala laakiin Cabdiweli aniga isku siyaasad baan ahayn isku mabda aan ahayn mabda'in wuxuu ahaa in xukuumadda tayo ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayay oo runtii dalka wax badan u qabatay inay ka badbaado Kampala Accord iyo howlaha ka soo bixi doona
waxaan meesha u joognay badbaadada cabinetkaas waxaan daqiiqad walbana la hadlaynay prime minister maxamed cabdullaahi farmaajo macnaheedu ma aha in madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka aan ka soo horjeednay laakiin waxay ahayd maslaxadeena anaga inaan ilaalino maxaa ka shaqaynaya Soomaaliya waxa shaqaynaya waxay ahayd cabinet oo aqoonyahan ay ku jireen oo howlo qabtay oo waxbarashadii dhaqaalihii dalkii hawshiisa qabanaysay hase ahaatee waxaa noo muuqatay in meesha ay ka socoto mu'aamaraad dabcan siyaasaddu waxay leedahay game la ciyaaro oo labada qof ee siyaasadda ku dirsanaa bariga oo ahaa madaxweyne Sheekh Shariif iyo gudoomiyihii baarlamaanka waqtigaas Shariif Xasan Sheekh Aadan naanasta waa in laga ilaaliyo waxay keentay in xukuumadeeni ay rabto inay gacanta ka bixi rabto Abdiweli yani wax alla waxaan sameynay way noo shaqeyn weysay marka waxaan soo wacnay prime minister Farmaajo waxaan ku noo Farmaajo meesha culays badan baa ka jira waxa laga yaabaa in annaga nala kala tuuro waxaan rabnaa aniga Abdiweli inaan galabta Kampala dhexdeeda isku casilno oo idaacadaha u yeerno oo aan ilaahdo meesha mu'aamara ka socota xukuumadda dalka ayaa la rabaa in la burburiyo annagana waa ka soo horjeednaa xukuumaddu waa in maaragtay meesheeda ka shaqeysaa Farmaajo meeshaada joog adiga cabinetka intiina kale laakiin labadeena is casileena idaacadaha annaga ka hadlayno Abdiweli intaan go'aanka gaarin wuxuu yiri war mana hubtaa go'aankaas markaas waxaan ku yiri istikhaara dukanina salaad baan dukanay waxaan yiri go'aan baa gaarin waa is casileena markaan madaxweyne Farmaajo prime minister Farmaajo u sheegay arintii buu wuxuu yiri wax yar isuga waa fiican tihiin khayr la hadisiyo walaal jiraatihiin wax yar isuga telefoon u dirdiray xoog dib inuu soo wuxuu yiri caawan idin imaanaya I will come to Kampala myself mistake ugu weyn oo siyaasi Soomaali sameeytaas ahayd waa ra'yigayga prime minister Farmaajo wuxuu noogu yimid Kampala waxaan ku niri aan wada tashano aniga iyo adiga iyo Abdiweli aan wada fariisano wada tashano waayay yiri hase ahaatee siyaasiyiintii meesha ka shaqeynaya waxay ogaadeen Abdiweli iyo Cabdinuur in laga ilaaliyo Farmaajo inay arkaan warkaan maqasheen in laga ilaaliyo waa waqti dambe hal kala hooydo waa 1 o'clock buu yimid habeenimo waa daalantihiin prime minister ha nasto idinkuna nasta aroortaas u nimaado waayahay balaya habeen waa loo abriista Soomaaliya ilaa in nidaamkii Sacuudiga wuxuu ahaa intaysan Abdiweli Cabdinuur soo toosin 5 o'clock shir hal galo hal la heshiiyo go'aan hal gaaro maslaxada dalka laga taliyo sidee wax noqdeen ba aroorta Abdiweli loo yeeray aniga iyo rag kale baan loo yeeray prime minister waa tanaasulay war subhanallah alwahid alqahar waxay ahayd ilaahay dadka qaarkiis ay tanaasulad kan waxay tahay kuwa kale bay tanaasulaan way tanaasuleen waxa keenay tanaasul muxuu yahay meesha xooga buuqa ka dhacay saxaabkii Abdiweli ka soo baxay marka oo noqday qofkii meesha ka soo baxay prime minister loo rabo in loo magacaabo waxaan ku saaxib aniga shalay istikhaara wada dukanay go'aan cilmi prime minister ma qalqalsatay weli wala kabto waxaan ku yiri nimankiina oo reer mudug yani waxa la sheegay waxba ka jira saaxiibo inta ay shaqeynayso oo kala meel ka wadi laakiin bari buu ka ahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo khayr Allah siiyo dadka wax faagfaaga oo barbaara ma ahayn wuxuu yiri cabinetka dadka ku jira walaalahay 4.5 waxa isla Abdiweli aslanahay Abdiweli boos ka hadal yani waa runtii wadannimo aan dadka qaarkii aysan heli karin oo inay wax barbaaraan oo kana abti yahay kana adeer yahay kana isku lafnahay bay raadin lahayn waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee kamid ah maxaa Cabdullaahi Farmaajo saaxiibkay meeshaas ayuu ku soo baxay kadibna prime minister ku noqday marka waxaan leeyahay buug wax badan oo fiican baa ku qoran wax badan oo maaragtay dabcan isaga soo arkaya ku qoran dadkuna sidoo qoran sheegay iyagoo wada jooga kulankan aan wada joogno ayaa qofba dhinac u ka arkaa kulankaas uu yahay oo hadii caashay buug qorto iyo faarax buug qoro kulankan ka hadlaya waxa laga yaabaa in qaar ay ka midaysan yihiin qaarna ay ku kala duwan yihiin waana sax wax jira waayo oo maaragtay caadi ah marka runtii waxay ii tahay farxad inaan ka soo qayb galo maanta daafurka buuga walaalkay Abdiweli Maxamed Cali Gaas runtii waa geesinimo in maaragtay qofku wax qoro waana nidaam u baahan inaan bilowno anagoo dhan aniga lafteeda buug baan qoraya waana soo socda haddii Ilaahay yiraahdo laakiin wuxuu ku saabsan yahay waxbarashada dalka